magaalada Boorama waxay ka mid tahay magaalooyinka horumarka ka sameeyay dhinacyada bilicda iyo kobaca dhaqan-dhaqaale ee bulshada. Taabadalkeedana waxaa barbar socda dib u dhacyo kale oo ay tabanayaan qaar ka mid ah bulshooyinka danyarta ku nool magaalada Boorama. Dhammaadkii sanadkii tagay 2018 waxaa qayb ka mid ah magaalada ka dilaacay biyo kuwaasi oo ka soo burqanaya ila dhulka hoostiisa kuwaasi oo aan kala joogsi lahayn. Biyahaasi ayaa waxay u dhadhan iyo ur eeg yihiin kuwa badda. Biyuhu waayihii hore waxa ay ka soo bixi jireen goobo cayiman, haddase waxay ka soo baxayaan goob kasta, waxayna saameyn kala duwan ku yeesheen dadka ku nool goobaha ay biyuhu ka soo baxayaan. Waadiga arkayo aqalka dhagaxa iyo ka kale dhagaxa iyo ka kale dhagaxa iyo ka kale dhagaxa biyo ka socda. boolooyinka dhexdooda biyo ka socda oo waan ku hagaag weynay oo aan ku cabsoonay. Maanta oo aan booqanay xaafadaha ay biyuhu ka dilaaceen oo ay ku nool yihiin dad danyara iyo dad kaleba, ayaan hooyooyinka ku nool xaafadaasi ka wareysanay saameynta ay biyuhu ku yeesheen intii halkaasi ay ka socdeen. Biyihii waxa la yiri waxa inda arkayaan ilka, waxa inda arkayaan u ilku gooyaan, waxa arkaysa weeyaan waana kaadi baa la nagu yiri waa idinka arkaya aqalada dhexdooda saasay noogu socdaan soo ma garanaysid. Marka aanu niri waxa la nooga qabtana waxa la nagu yiri waa kaadi biyo ma aha waa kaadi kaniifiyada waana idinka arkayo wax la idin sheego nin waliba wuxuu arkunba wax ku qaata. Waa laga wada baqday aqalada, waa laga baqday imika nin weyn iyo waxa galo uu ma garanaysa carruurtii waa laga baqday. Waa adiga arkayo aqalka dhagaxa iyo ka kale dhagaxa iyo ka kale dhagaxa iyo ka kale dhagaxa biyo ka socda. boolooyinka dhexdooda biyo ka socda oo waan ku hagaag weynay oo aan ku cabsoonay aqal dhagaxa inaan ku dhisan soo ma garanaysid. dabadeed waxa weeyaan aqaladii dhexdeedii biyo nooga socdaan, cid wax nooga qabata ma aragno, dawlad noo soo gurmata ma aragno. dabadeed haddaan kaniif qodana kaniifadii way naga wada dumeen, waad aragtaa oo mitir in ka yar baa loogu tagayaa. aqaladii dhexdoodii biyo ka socda, hantidayadina Ilaahay baa naga dhigo maaragtaa waan dhex deganna, cid noo soo gurmatana ma aragno. dabadeed cabsi baan ka qabnaa waxa weeyaan maaragtaa mar kasta oo dhan waxaan ka baqnaa markuu roobku doo meel ay maaragtaa ka baxan ma helo. guryaha dhexdooda biyo ka soo dilaaceen, seeskay ka dilaaceen, milix baad aragtaa guryaha dhexdooda saa wada qarisay, dhabarkooda saas u qarsoomay. cid wax noo qabato dawladda maaragtaa wax nooga qabatana wali ma hayno. in badan codsi waan u diranay wali ka wax ka soo jawaabo ma hayno. halkani waa mid ka mid ah guryaha aan maanta booqanay, waxaana laga qodayay suuli. markii la gaaray 1 mitir waxa soo booday biyahan aan hadda u jeedaan kuwaas oo u dhadhan iyo ur eeg biyaha badda. qaar ka mid ah bulshada xaafadani ayaa waxay xukuumadda madaxweyne Biixi ku codsadeen in lagala tacaalo biyahani oo ay sheegeen in caafimaad darro ku hayaan. biyaha wasakhda badan carruurta weydinka ay sheeda arkaya, ilmahagaagu caafimaad qaba male, kaneecada naga cunto goor walba naga daadiso, waxa kale oo naga caloosha naga xanuunta soo ma garanaysid. inay hadii dad haduu jiro oo dawladdi jirto waxa la nooga qabto waxaan ka codsanaynaa hadii ay wax noo qabanayaan ay wax noo tarayaan halkaasaanu fadhinaa dadkoodina waan nahay waxa la naga qabto waxa la noo qabto. aragtana halka suuliban ka qodanay suuligi waad aragtana 1 mitir in ka yar baa biyihii lagu gaaray. waadiga arkayda meel loo dhaafay ma jirto, biyihiina aftayba marayaanba. waadiga arkay korka inay uga soo boodeen meel kale oo laga qodana ma laha, meel kale oo ka qodana ma laha. meel kasta hadii aad qodo saasay biyuhu soo buuxan, waal biyo u dhow iyo meel ka dheer. dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa tay dooni ma aday Muuse Biixi tay aday ku kasokada aday ma irtaba waxaan ka codsanaynaa in badan waanu camanay waxbana noogama qaban. dabadeedna imika waxaan ka codsanaynaa carruurtii kariica naga laysay biyihii waan ku dhex dhimanay, cid islaan oo waan ka boqono, cid gashaayba ma jiro. inta yar gashina hantideedii meesha ka muuqata cid taala waa la waayay. dabadeed waxa nin hantidiisi meesha taala xaq ugu cararo iyo xaq ugu guray itaalanka ugu guray waan weynay. dabadeed waan iska aaminay waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh hadday wax nooga qaban karto biyahaas balse wax nooga qaban lahayd inay nooga qabato. waa Cabdilaahi Daahir, waa TV-ga caalamiga ee SAB magaalada Boorama.